السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waa sheekooyin gaagaaban oo ku saabsan arrimo yaab leh oo aan caadi ahayn oo aan soo aruuriyey. Shimbirtan afka Ingiriiska lagu dhaho common cuckoo waa shimbir yaab badan. Shimbirtani ma jecla inay ukunteeda xanaanayso inta ay ilmaheedu ka korayaan. Markaas waxa ay samaysaa istiraatiijiyad khiyaano ah. Waxay raadisaa shimbir kale oo ukun haysata. Markaas ayay sugtaa inta ay cunno raadsanayso. Marka ay cuntada raadsato, shimbirtan ayaa inta ay soo gaatanto ukunteeda meeshaas ku dhalaysa si ay shimbirta kale ugu xanaanayso. Markaas ayay haddana ukumihii meesha yaalay hal ukun oo ka mid ah inta ay afka ku qaado tuuraysa si aan looga shakin ukunta dheeraadka ee meesha la dhigay. Shimbirtii ukumaha kale iska lahayd marka ay soo noqoto ma dareemayso in meesha ukun dheeraada la dhigay. Ukumaheedii mid ka mid ahna laga tuuray. Marka ay ukuntaasi dilaacdo ayaa waxay ula dhaqmaysaa sidii inuu ilmaheedii oo kale yahay, inkastoo inta badan uu aad uga weyn yahay ilmaheeda kale. Mararka qaarkoodna iyada xataa ka weyn. Waxaa la soo sawiray shimbir yar oo quudinaysa shimbir aad uga weyn oo ay u malaynayso inay iyadu dhashay. Waxaa jira xaalad la dhaho alien hand syndrome oo keenta in dadka ay arrintaasi ku dhacdo ay mararka qaarkood gacan ka mida gacmahoodu ay samayso waxaysan iyagu rabin, sida inay wax qaado iyaga oo aan rabin inay sidaasi sameeyaan, oo waxaa moodaa inaysan gacantaasi kontroolayn. Xaaladdan ayaa waxay ku dhacdaa qayb yar oo ka mida dadka qaba cudur ku dhaca neerfaha ee la dhaho epilepsy, kaasoo keena suuxitaan ama wareer iyo gargariir. Hooyada adduunka ugu yar inta wax la diiwaan geliyey ayaa ah gabar yar oo u dhalatay waddanka Peru oo wiil dhashay sanadii 1939 iyadoona jirtay 5 sano 7 bilood iyo 21 maalmood. Magaceeda waxaa la dhahaa Lina Medina, inkastoo markii hore loo maleeyay inay tahay arrin been ah ayaa waxa xaqiijiyay dhakhaatiir Mareykan ah iyagoo ay saxaafadda caalamka oo dhan wax ka qoreen. Wiilkeeda ayaa waxaa loo sheegi jiray inay tahay walaashiis ilaa uu ka gaaray 11 jir, markaas uu ogaaday inay tahay hooyadiis. Wiilkaas ayaa waxa uu dhintay 1979 isagoo 40 sano jir ah, halka hooyadiis ay ilaa maanta ku nooshahay caasimadda Peru ee Lima iyada oo jirta 84. Ilaa iyo hadda waa ay diidaa inay saxaafadda la hadasho iyadoo aan sheegin sidii ay uurka ku qaaday. Maroodiyada dhasha ah ee yaryar waxa ay nuugaan gacankooda dheer sida ay ilmaha yaryar u nuugaan suulka, si ay madadaalo uga helaan amaba ay isku mashquuliyaan. Gacanka maroodiga ayaa ah sankiisa ama meesha uu ka neefsado, isagoo u adeegsadana inuu biyaha ku cabo. Intaas ayay ahayd sheekooyinka aan soo ururiyey maanta. Intaan mar kale kulmayno, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.